fuliyay gobolka Jubbada Dhexe. Qaramada Midoobay oo bogaadisay in Soomaaliya ay ka saartay meesha askaraynta caruurta yaryar. Dowladda Soomaaliya oo go'aan adag ka soo saartay hubka sharci darrada ee soo galaya gudaha Soomaaliya. Faahfaahin dheeraad ah oo laga helay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo maleeshiyad hubeysan oo ku dhex maray deegaanka Yaqbari Weyne. Dibaddan waxaad ku daawan doontaan falaagada M23 oo la wareegtay magaalooyin muhiim ah. Isku soo laabasho wanaagsan haddii aynu ku bilaawno. Faahfaahin dheeraad ayaa laga helay duqeymo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose. Warkan waxaa noo soo jeedinaya Cabdiyare. Faahfaahin dheeraad waxay ka soo baxayaan duqeyn diyaaradeed oo xalay laga fuliyay magaalada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, halkaas oo khasaare lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab. war ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay in lagu duqeeyay goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo shir uga socday, waxaana la tilmaamay in khasaare lixaad lagu gaarsiiyay duqeynta halkaas laga fuliyay. dowladdu waxay inta ku dartay in duqeynta hadafkii laga gaaray isla markaana khasaare baaxad lagu gaarsiiyay kooxda Al-Shabaab saraakiishooda ee halkaas ku shirayay. dowladda federaalka Soomaaliya waxaa dhinaca duqeymaha waxaa ka caawiyay saaxiibada caalamiga, waxaana la sheegay in muddo dheer la aruurinayo xogta shirkan iyadoona ugu dambeyn la duqeeyay sanadkii 2021 ilaa sanadkii 2024 xadgudubyadaasi waxaa loo geystay caruur. xadgudubyada ugu badan waxaa ka mid ah asgaraynta caruurta, afduubka caruurta iyo dilka caruurta. kooxda Al-Shabaab ayaa mas'uul ka ah 66% dhammaan xadgudubyada la xaqiijiyay, iyadoo ay kordhisay qorista caruurta iyo maran habaabin lagu sameynayo masjidyada iyo dugsiyada Quraanka ee ku yaala deegaanada ay ka taliyaan. caruurtan ayaa la qoray waxaana ka mid ah kuwa da'doodu ay ka hooseyso 8 sano. hay'adda ammaanka qaramada midoobay ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo joojiyo asgaraynta caruurta lana ilaaliyo iskuulada iyo xarumaha caafimaadka si loo xaqiijiyo nidaamka ka hortagaya xadgudubyada. inkastoo horumar la gaaray, qaramada midoobay waxay ka digtay in kooxda Al-Shabaab ay weli mas'uul ka tahay inta badan xadgudubyada xuquuqda aadanaha ee dalka, oo ay ku jiraan dil, afduubyo iyo weeraro loo geysto dad shacab ah, shaqaalaha gargaarka iyo hay'adaha dawliga ah.
kooxdaas inay tahay koox argagixiso. Cali Balcad ayaana sheegay in dowladdu midaas aysan ka warhaynin sidoo kalena ay mar walba ku dadaalayso in dalkeeda uusan wax hub ah iyo sidoo kale wax draagis ah uusan dhaxmarin gudaha dalka Soomaaliya. faahfaahin dheeraad ah laga helay dagaal u dhaxeeyo ciidamada dowladda iyo maleeshiyada hubeysan oo ku dhaxmaray deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose. warkan waxaa noo soo jeedinaya Shukri Bareere Maxamuud. duleedka deegaanka Yaqbari Weyne ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa ka dhacay dagaal xooggan oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. ciidamada dadka deegaanka oo la baxay magaca duufaanta Sheekh Xasan Barsame ayaa waxa ay la dagaalameen ama kor yimaadeen askarta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed halkaas oo ka dhacay dagaal xoog leh. ilaa haatan faahfaahin rasmi ah oo dhanka dowladda ah lama hayo balse dadka deegaanka waxay sheegeen in dagaalku ahaa mid xooggan isla markaana ay ciidamada deegaanka si xooggan isku difaacayeen. khasaare dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac ah ayaa la soo wariyay balse ma jirto cod si rasmi ah u xaqiijin karta inta ay tiro virus wasaxaafadeed ay soo saareen kooxda Ridwan ee taageer